wafdigan waxaa hogaaminaya wasiir ku-xigeenka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qalooco waxaana safarkiisa qayb ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyadoona garoonka diyaaradaha ee Konoko ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan Puntland oo ugu horeeyay wasiir dowlaha qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland imaatinka wafdigan kadib waxa uu ujeedada safarkooda faahfaahin ka siiyay warbaahinta qaranka agaasime ku-xigeenka iskaashiga caalamiga Maxamed Daahir Faarax حسين إني وضعن وتشيجود أو معمول قبلات تلك عيد الله. سفر كان عن أني مدة بنتلان عاصمة ديس الجدول وحقوق يا حفيز كان ناشونال أستراليان أوفيس أما حفيز كماريا أما هيرجرينتا كشقة مشاريع الإيو ده وهوست وزارة قرشينتا وحاولني منه حتى كونسلتيشن أما لا تشي عن كسوقني إني ودن كلن أنت بدل ودن كقوم معمول قبلات الكجلو سوسوني رأى مركب قدام بيسي عن هذا بنتلان يكون مرينا هدية عيد مهر شبل آدم الفرح سنة محمد داهر فارح ayaa sheegay in wada tashiyadan guud kadib qorshahan la xiriira habkii loo maamuli lahaa mashaariicda kala duwan ee midowga Yurub ka timaada la hirgelin doono horaanta sanadka cusub ee soo socda wuxuu hirgeli doonaa 1 January hadii la hayno 2017 ka horna waxaan rabnaa hadii la hayno inaan consultation ki baahino oo maamulada dhan la hadalno oo aan uga warbixino xafiiskan wuxuu yahay wuxuu qaban doonaa inuu soo kordhin karo Puntland waxaan qiyaasay waa state runtii horumar ma dowlad goboleed horumartay oo aan qiyaasay inay aad uga faa'iideysan doonaan insha Allah maalimada berita ayaa lagu wadaa inuu magaalada Garowe ka furmo shirkan looga hadlayo qorshaha qaran ee maamulida mashaariicda kala duwan ee midowga Yurub laga helo Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe